السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داوديال مeel kasto aad naga daawanaysaan waa anagii soo rogaal celinay oo ayaamahan iska yara dhigayna dad active ah oo joogo oo YouTube wax soo galgaliya habeennimadan caawa waxaan idin la wadaagaynaa barnaamij ama program aanu 5 bilood ka hor muddo laga joogaan idin ballan qaaday oo xiriir la lahaa dhaqaatiirtii Turkiga barnaamijkan kaga hadlaynay programkan dhaqaatiirta Turkiga kama hadlayno laakiin dhibaato kale oo taagan oo bulshadeena haysata gaar ahaan umada Soomaaliyeed marka aynu ka hadlayno inkastoo ay tahay wax caam ah oo caalamka oo dhan ka jira hadana bulshada Soomaaliyeed haysata ayaan doonaynaa inaan kaga hadalno waana dhibaatooyinka la xiriira in arrimo caafimaad la weydiiyo Google-ka waa aalad aad iyo aad u baaxad weyn waa aalad loogu talagalay inaad ka raadisid macluumaadka internetka la soo geliyo waa macluumaad fara badan ayaad ka heli kartaa tusaale kale haddaad ku qortid Xamde iyo Naasir waxa ku soo baxaya waxyaalihii annaga aan soo gelinay ama magaceena la xiriiray sidaad ogtihiin wax walba oo manfac leh yani marbay dhibaatadooda leeyihiin Google-ka hal ahaado manfac oo ah inaad macluumaad dheeraad ka heshid waxyaalihii aad rabtaa ka heshid laakiin dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ayuu dadku geystaa marka barnaamijka maanta waxaan rabnaa inaan uga hadalno oo ay Xamde nooga waranto khibradeedii iyo waxyaalihii ay kala kulantay Google-ka runtii waxaan oran karaa anigu waxyaabahan kala kulmay ama khibradan kala kulmay xanuunkii marka ay hayay jimsiyanka hayay iga muuqday bararka lahaa ama wax walba lahaa xanuunkii marka laga yimaado aniga labo dhaawac oo kale ayay haystay oo xanuunka bay iga darnaa kow horan ayaan ka soo hadlo dhaqaatiirta dhibaatada ay geysteen ayaa kow ka ahayd talabaadna waxay ahayd Google-ka ayay ahayd oo Google-kan xoog ugu xidhnaa oo wax kasta xitaa dhaqtarku wuxuu soo yiraahdo waxaan gaaray heer aan aamin waayo oo Google-ka gala oo aan su'aal kasta weydiiyo Google-ka tusaale ahaan dad maanta ku qotin madaxa ayay xanuunaya wuxuu ku soo dhigayaa intaasoo xanuun intaasoo option oo intaasoo yani calaamado waxa ugu weyn oo ku oranayaa waxa qabtaa burum maskaxda ka soo baxday bisinka subhanallah ilaahay naga hayo horta inta xanuunsan ilaahay ha ka kor qaado laakiin mystery indhahadan waxay qabanayaan wixii xun sida raadinaysaa ya bro haya muradaas madara adigu hadda meesha laga hayo lugtay xanuunaysa gacantay xanuunaysa waxa doonto bal ku qor maanta fin baa iga soo baxay bal ku qor wuxuu qoranay xanuunkaas ku haya oo xanuunada khatarta ah waliba ku sheegaya aniga dhibaatooyinkan kala kulmay runtii aniga horta caafimaad xanuunsan ayaan oran waa caafimaad qabay xanuunsan laakiin xanuunkaygaasi uu hada qoorto barsan ama xanuun yar oo kale aan dareemayo laakiin aan xanuun una meesha jirin oo qoorta bararkeeda aan xanuun igu hayno habeenkii ka seexan karo oo aan dhinacan waxda maqasho aan ka dareemaynin oo xanuun ah ayaa markii ugu horreysay markaan dhaqtarka tagay ugu yiri xanuunkaasan kaaga shakisanahay ilaa aniga nabadgelyo kansarka marka habeenka maalinkaas xanuunku igu bilowday xanuunkii wuxuu igu sii laba kacleeyay markii aan ku qoray kansarka ku dhaca qoorta ajiib aan weydiiyay Google-ka ee uu yiri lagu ma ku xanuunaan ma ku xanuunaa ma dhigida saas ma samaysaa ma dareenta ha bayda ha wax kasta uu weydiiyo su'aal kasta waxay dhahdaa wallahi tan waa taadi ha hey maseexan weyda uga wasaxda bayda marka runtii dhaawac weyn buu geystay heer waxaan gaaray telefoonka aan soo qabtaba aan Google dhex taaganahay oo aan su'aal weydiinayo oo aan 150 xanuun oo aan weligii maqal oo arag baratay khabiir bartay erayo aan weligii maqal ayaan meeshii ka bartay oo caafimaad la xiriira oo markaan ereyga tusaalahan garan waayo waan qaadayo Google Translate hadana sii jeeya shaqay runtii aan leedirsan baan galay oo anigana dhibaato mooyaane marka aan dheef ka helinin laakiin qofka xanuunsan isagu isma ka hantirooli karo waxaan xasuustaa inaad in badan igala tahin jirtay igala hadijada oo inta Google-ka waxba weydiinin marka qaarkood waxaan oran jiray anigu Google waxa soo qoray adna galo wuxuu ku soo qoray sheeg luqadaada ku baar luqada wadankeeda ku baar luqadaada ku baar carabi ku baar baan ku dhahdaa iyo Danish ku baar baan ku dhahdaa Danish wax soo qoran damiir sheegay emotion soo qoran xataa aniga wiilay iska daa wallahi been maahan waxaan sameyn jiray mararka qaarkood waxa aan akhriyo oo wax khatar ku saabsan marka arko aan ka boodi jiray uma sheegayna sababtoo ah xanuunka jirka waxa ka daran xanuunka maskaxiga psychology ahaan qofka waxa uu dareemo ama maskaxdiisa aan soo dareento wataada sheegaysay dhakhtarka markii Turkiga ahaa uu ku yiri waxaasan kaga shakisanahay xanuun ba lagagama horeyn eraygaas markuu yiri kansar ligama horeyn gabadhaydii
meeshaa bararsan dhinaca iyadoo midigtu bararsan yahay waan u seexan jiray intaasoo saacadood baan hurdi jiray weligii xanuun kama dareemin aan bararka ahayn haddana maxaa dhacay wallaahi habeenkii igu soo yidhi maalinkii dhakhtarku igu yidhi xanuunkaasan ka shakisanahay aan google-kana galay oo la yidhi qanjaha oo barara waaba xanuunkaas habeenkii baa hurdo dhinaca aan u seexday igu dambeysay iska daa aan u seexday haddaan maradaas suma hawoognay hawoogta ayuu igu damqanayay baxdaa soo jirta loodan hawoogna iska socotaa marka dhibaatada waxa weeye waxaan ogaanaynaa uu ku gaansaday maskaxiyan waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo khibradaada google-ka waxaad ogtahay xanuuno badan baa isku calaamada ah markaad bal wax badan baarbaartay soma xaqiiq maahan inay jiraan xanuuno badan oo isku calaamada laakiin aan isku shaqo isku lahayn inkastoo inagoo ana caafimaad aanan baran labadeeduba oo dee aanan dhakhaatiir ahayn haddana waxaan doonaynaa inaan dil wadaagno waxyaabaha maskaxiyanka adiga ku dhaawici karaa ama aniga aan khibrad u haysto oo kaleeto waxaa laga yaabaa labadeen inuu madax maanta inaad xanuunayo ama laba qof oo kaleba madax uu xanuunayo ama meel kale ay xanuunayso caloosha xanuunayso meel kale xanuunayso waxaa laga yaabaa labadaas xanuun in labada qof ay isku astaamo yihiin laakiin aanay laba xanuun oo kala duwan uu yahay tusaale ahaan madaxa ayaa ku xanuunaya qof kalena madaxa ayaa xanuunaya qofka waxaa laga yaabaa inuu hurdo iyo nasasho u baahan yahay iyo biyo uu u baahan yahay qofkan kalena wax jirkiisa ku jira oo markaas u baahan dhakhtar iyo talo iyo daawooyin u baahan uu la xanuunayo marka intii aad google ka tusaale qaadan lahayd inta xanuun qof kale ku dhacay adigu isu barbar dhigi lahayd oran lahayd qofkaasna saasaa loo hayaa oo hadduu madax tusaale ku xanuuno qof xanuun weyn laga helayo kale qofkaana saasaa loo hayn jiray anasaana lay hayaa mar walba ha isbarbar dhigin mar walba waxa aad go-aan ku gaadhaa dhakhtarku wuxuu ku yiraahdo xataa hadda dhakhtarkaa ku kalsoona weyda dhakhtar kale ku eeg mid labaad ku eeg mid saddexaad ku eeg laakiin weligaa yaa allaha google ha gelin qof kalena wax laga helay ha odhanin qofkaasna waxaasuu qabaa aniguna astaamahaasaan leeyahay qofkaas wixii uu qabay ayaana qabaa ana waxaan xustaa kale markaan waxaa xasuustaa markaan turkiga joogay meeshii ay xoogii xanuuntay 100 daawo oo kala nuuc la ii qoray oo daawo dabiici dhaqan Soomaali ah oo wadankii la iga soo diray meeshii anigu hawaalay runtii toon mari waxaan mari 100 talo oo kala duwan aan qaatay waxaan xasuustaa meeshii in markay sii baratay aniguna wax marmariyay in meeshii dareenkii ka tago oo markaan meeshii tagto dareen meeshii ma dareemayaba markaas waxaan ka shakiyay farahayga inay farahaagaan dareenka lahayn isagoo qoortaada maalin markaa waxaan xasuustaa anoo jikada weli jooga jikada isagoo jooga qada karinaya laainantii way xanuunsatay xaaji baan jooga anigu waan isdhiibay runtii caadi baan isu dhiibay waxaan xaaji cafis imsaal xarta isagoo inaan kanoo qadadii karinaya ayuunbaa waxaan ka fikeray google-kan horta galay wuxuu yidhi meesha hadday bararsan tahay miyay ku adag tahay miyay ku jeedsan tahay su-aalahaas google-ku ku sharaxaya marka website markuu ugu soo xidhayaa website-ka markaad akhrisatid wuxuu ku sharaxayaa meeshu hadday adag tahay waa sidaa hadday jeedsan tahay waa sidaan meeshu dareen ma leh haddayna dareen lahayn xanuunkan weeyaan anigi markiiba xanuunkii wali xanuunka ma taqaana waa kansar hadda la soco ilaah naga nabadgeliyo waxyaalahan ay akhrinaysa dhan waa wax xanuunka sida la xiriir intuu haya ilaah ka qorqaado amiin amiin dadana markiiba waa naxayba anigu oo hini soo hayso ayaan farayga ku taabtay muraadda sab taagay dadana markaan meeshii saabta taabtay un baa waxaan isiri wallahi ma laga yaabaa inay farahaaga yihiin bayiniyadaadii bal naasir u tago qoriyar qorgan findicilka ama maxay dhahaan istikiin may dhahaan istikiinka waa lagu findhicisho ayaan soo qaaday meeshan kasa uga tagtaaga dareen male maxaa yidhi may meeshan haddaba waaba xanuunku google kugu sheegay un baan ii dhakhaatiirtu qorigii baa naasir u keenay isagoo jikadii taagan cunto karanaya masaxankood meeshii dareeni ma lehe bal qorigan ka tagtaaga aniga malaa gacantaydi waaba dareen ka tegaya markaasuu meeshu wuxuu yidhi bari weyn dhaqtar ka tegaynaaye shaydaanka iska naaro google-kana iska dhaaf buu yidhi bal igu eeg unbaan ku horta qoriga meesha ka tahay qorigiiba meeshu saa ku yidhiyo waxaa ma dareemsan kuwa baleg waxaa ma dareemayay waan iskaga soo dhaqaaqayo bustun baan hoos kalo iska ooyday mobilkan horaan sii qaato waan sii akrinaya wiiga dabi yimid wuxuu ku leeyahay suun buu ku leeyahay shaydaanka iska naaro caynkan insha Allah wada maanis caynkan aduu cabaar buu lahaa hadda ma yahay quraan ma ku saaray kitaabka soo qaatay quraanna hay saarin mobilkii ma sii akhrisanaya quraanna hay saarin waan ooyay mobilkii ma sii aqrinaya cararayo salaad iska galay hadda ducadii maalinka la yaqaan malaynaya alxamdulillah horta anigana khalad baan sameeyey runtiina waxay ahayd inaan qofka marka uu wax dareemayo waxa fiican in wax uu dareemayo si naxariis leh loola dareemo oo qofka mataqaanaa aanan anigu koleyga ma ahayn
ad adkayn laakiin waxay ahayd waxaan yani dee waxba kama qaban karno hadda google haddaan ka akhrino hadduu adkaado yani dhibaato jirto waxay tahay waxba kama qaban karti calaamad kasta ku sheego waa ku sii waalanaysaa waxaan kugu xanaaqiba maxaad yiraahday dhaqtarkan kula sugaya madina dareentood ilaad waad xanuunsanaysaa waxay kula dagaalamaysa inaan ku dhaho allah way adkaatay hayaay wallahi waxbaa ka jira inaad maarata kasii waalo ayay kusii lanaanaysa ayada ama dee xanuunkayga ma dareemaysid xanuunkayga ma dareemaysid laba anigii baaba markii dambe aan isqabto waxaa yidhi ani wallahi waxay ahayd inaad xoogaa u yara dhahday allah waa run laakiin yara adag tahay dhaqtarka balberintoon wax kale inaad dhahay horta arrintii inaad qofka aniguna markaan arkay adigoo salaad ku jira masaas baa kuusoo moogta adoo salaad ku jira markii baan qoslo wallahi rabta shidaankii baa iga tegay wallahi waan u duceeyey ilaahay baan u baryey maxaa yeelay qofka dhibaatada xanuunka caadiga waxa ka daran xanuunka uu qofka maskaxiyan u dareemo uu dareenka ka qaado waxyaalo iska dhaca adeerkay halkan ka salaamay khayr allaha siiye دكتوركي ها برعتشوقي دكتور وين ayaan adeeraan la hadlay horta adeeraan ku degay dee ana adeero meeshii dareenkii uu ka tagay ma madaxoo dhan ba maruu dareenkii iga tagaya wuxuu ku adeero meeshan waa neerfo qoor weeyaan markay barato laga yaabo in neerfo uu yara meeshii uu joogay ka durkay oo dee saas oo kaleeto uu dareenkii uga tagay wallahi waa runtaa waan adeero maalinkii waxaan u geertay iga tagayba waana farqiga u dhaxeeya qofka markuu cilmigan barto aniga tusaale kale haddaan saas oo la hadli lahaa ku dhihi lahaa meesha waa neerfo waa sidaan waan aqoontaas u lahaan lahaa waxaa laga yaaba inay ku qanci lahayd xataa aan ku degi lahaa adeer wallahi wuu qanci ku adeer meesha maadaama neerfo tahay meesha ay barar keento neerfaha meeshii ka kacaya marka jirkeenu isku wada xidhan yahay wuu is wada dareemaya wuu is wada haystaa haddii marka meel fartaas ugu barato kuwiya dareemaysaa soo maaha sax marka dabcan dhaqtarku talooyin badan buu ku siinayaa dhakhtarkaada aamin ilaahayna tala saaro tasbiixda badso waxaa jirta xamda arrin kaloo muhiim ah oo aan ugu magac daray google-ka socda nool bal arrintaasi iyo soomaalida ayadana ka waran horta soomaalida sidoodba waa wada dictor PhD bay waa dictor isnacay dictor isnacay ba ka heesa meesha soomaalidu waa wada dictor islaanta miyiga joogta inkastoo aynu waxyaabo badan ku faa'iidnay oo dhaqan caada soomaaliska ah oo aynu ku faa'iidnay ay jiraan islaanta daawada dabiiciga sax daawada dabiiciga ah haddana islaanta miyiga joogta maanta hadda u tegtay oo teesaasaa laga hayaa xanuun hebel baa ku dhacaysaa wallahi gidigeen dad caynkaas aynu nahay laakiin waxaa inagu badan in dadka aynu siino talooyin khaldan in aynu dadka niyadda ka dillo anu waxaan xasuustaa markii xanuunkaas ilaahay naga nabadgeliyey ay dhakhaatiirtu ilahay waan kaaga shakisannahay aniguna google-ka iga waalay dhakhaatiirta markastaan booqanayo dabcan dad baad arkaysaa oo aan soomaali ah maadaama adigu qof la garanayaa tahay waxaa laga yaabaa in dhowr qof oo aad kula kulantid meesha ku garanaya deetana inkastaan usaan u labisan jiray aan niyadda dhisan jiray intaan iska labisto oo aan make-up ismariyo aan dhakhtarka aadi jiray oon soo jeeday xanuunkan lagaa dareemin mar walba qofka kale dee ku arkay ayaan kaa dareemin xanuun yaan kaa dareemin mar walba ka fikri jiray haddana markuu qof dhakhtarka ugu kalma la xamdamiya inanti TV-ga hay allah ma xanuunsan tahay hadda waa su-aashii labaadba markaa tala xamdaanahay ha ma xanuunsan tahay ha ilgo abaa ka muuqda wallaahi waa waxa weeyaan khalaas saa lagu hayaa wallaahi dhakhtarkan baan u socdaa markaa qoortaadi xanuunsan saano anigu daacad baan waan iskaga sharaxa qofkii wixii aan markaa dareemayay allah bay ku leeyihiin way kaa muuqataa wallaahi saas ugu farasan tahaa gabaraan garanaa oo saan ama islaan oo qaraabo nahay ama aan jaar ahayn abtigay adeerkay abdigay adigu wax saas oo kaleeta ayaan garanayaayo saan oo kale intuu bararay baa hindiya la geeyo kansaraa laga hela aakhir waa dhintay dee inaa lillahi wa qosol wallahi ma joogto laakiin waa dad arrin aad iyo aad u naxdin badan iwad sheekada haye saasaa lagu dhahayaa ama qof ehelkaaga qaraabadaada xanuunkii la sheeg garanaysaa saasaa dhakhtarka igu yiri iga shakisan yahay wuxuu qoranayaa wallahi haddii xanuunkaa lagaaga shakiyo 99% waa u noqdaaba xanuunka soo hadii maxaa lagaaga shakiyey maxaa la dhahaa in laga hela laga yaaba dee waan ku imanaynaa haddii qalin wax lagu sameynayo daawiya wax lagu qorayo kafantii waa lagu sii diyaaray waan ku iman doonaa marka xanuunka lagugu soo saxiixo haye walaaloon baan idhahdaa ilaahay nooma keeno nooma kasoo horto qof kastano intii la xanuunsana xanuunka ilaaha ka warqaado laakiin aniga saasaa laigu soo yidhi weli layguma sheegin waxaad arkaysaa dad baa dhakhtar qof ku booqanaya ama gurigay ku booqanayaan waxay ku dhahayaan halkii qofkii uga ducayn lahaayeen ay magaranaysaa faatixada u akhri lahaayeen niyadda u dhisi lahaayeen waayo xanuunkuba waa niyadda iyo waxa aad ku aaminsan tahay adigaaga caafimaadka qaba maanta haddii aad dhakhtar tagtid oo kulaada xanuunkaasaa ku hay tusaale ahaan xanuunada waaweyn oo kaleeto oo dawooyinkooda ay adag yihiin kastoo ilaahay qofku dawo la doono aanay adkaanin
haddana xanuuno waxaa jira dee majority dadku ay adag tahay in ay dawooyinkiisu ay ama time qaadato ama ay adag tahay marka xanuunadaas oo kaleeto rabeen iga nabadgeliyo in qofkii marka aad booqatid oo kaleeto aad niyadii u dhistid oo hadduu xitaa xanuunkaa uu yahay xanuunada xun ka midka ah aanad adigu aakhira usii kabagelinayn aad adigu qof walba u dhimanaya asaas wey inaad qofka dee sii rawixin sii rawixin aan odhan wallahi bilaayaba kamay kicin bilaayo loogama dambeyn waad socotaa aan lagu odhanin niyadii loo dhiso marka aan usoo noqdo halkayga adigaaga caafimaadka qaba haddii aad inta daktarka tagtid hadda mid ma qabtid uu daktarku kugu soo sheego xanuun ilaahayba kama dhigo maanta uu ku dhahay waxaasaa ku haya isla maantaba sariirta ku ururaysaa waayo waa niyadda waxani dadku niyadda ayay ka nool yihiin qalbiga ayay ka nool yihiin xanuunka jirkaaga aad ka dareemaysid waxaa ka xun ka niyadda iyo warwarka uu kugu abuurmaa uu kugu saameynayo adiga markaa kaalintaad waa maxay inaanad qofkii tiraahdid xanuunka waa laga kaca xitaa dad su-aal usoo qaadanaysid dad xanuunkii ka ladnaaday oo kale loo sheegaa looma sheego dadka xanuunka u dhintay dadka xanuunkii u dilooday ee sariirta ka kici waayey qofku markuu xanuunsan yahay keliya waxaa loo sheegaa waxa wanaagsan ama hadduu caafimaad qabo xataa oo aad wuxuu uga sheegaysid dee yacni waa dhaawacaysaa marka mar walba waxaa fiican carabkaaga iyo afkaaga inaad bartid kelimada wanaagsan hadalka wanaagsan iyo ducooyinka aad bartid qofka oo aad mar walba qofkeeda xanuunsanaad booqatid aad usoo ducaysid booqashadana dabcan dee adigaaba ajar ka helaya qofkii aad booqatay haddaad xanuun la doonatid balka waran waa dhibaato google-ka socda xanuunka markii laga soo tago nolosha caadiga oo nolol maalmeedka xataa saameyn buu ku leeyahay qofka markuu caatoobo markuu cayilo markuu maaragtay yara madoobaado ama midabkiisa isbedel ama wax dhacaan taas xataa soomaalida aad bay ugu dheerayaan haddaad anigu waddanka markaan joogay xandadhuu baa la dhihi jiray haddana balbalaalka hadda waxay igu dhahaan alla waad naaxday isdaba qabo qurbaha waa lagu cimri degdegaaye waad ku madoobaatay marka haddaad bini aadan u noolaatid horta oo aad mar walba taladiisu qaadatid aduun baa ku dabalumaya aduun bay ku diloonayaan markaan waddankii joogay xamdadhuuba laylahaana cayuun bay ka ahaydoo dee waxaa laylahaa hasnaaxi maxaa qoriga kaa dhigay qori baa tahaybe markaan halkan joogana imikana ammaan heli maayo inkastaana xoog u naaxin dee marka waruma haysid qofkuna sababtuu la dhuuban yahay waruma haysid qofkana sababtuu la naaxay waruma haysid xanuuno badan dadka naaxiyaa jira asbaabo kale qofka naaxiyaa jira dadka qaar baa markuu depression ku dhaco ama stress uu ku dhaco iska naaxa dadka qaarkood way la dhuubtaan dadka qaarkood iyagoo caafimaad qaba iska dhuuban yihiin dadka qaarkood iyagoo aan waxba cunin oo qofka dhuuban ka cunto badan yihiin buu iska naaxayo soomaalida waxay tirahdaa anagtiisa ilaahay u barakeey marka bini aadan weligaa iyo allaha ha u noolaanin waxa adigu nafsadaadu ay doonayso unbaa lagu dhaqaaqaa adigu aad isleed waxa waa ku nuuraysaa waa ku qurxoon tahay caafimaadkaagu inuu ku jiraa samee aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay runtii qisadan wanaagsan aan nala wadaagtay hal mawduuc oo gabagaba ah aan kusoo xiri doono oo kaasi waxay tahay daawooyinka dad baa qaybiya waa aragtay daawo qof kale loo soo qoray daawo dabiici ha noqoto oo daawo soomaali tan la yidhaahdo ama daawooyin dhakhtar kale qof kale ku caafimaaday yacni dadkana arrintaasna aad bay ugu badan yihiin dabcan waad la kulantay daawooyin badan oo la sisinaya ma la qaybiyaba hadda ka hor xataa waxaan u malayn mid kugu dhacday inaad aniga horta markaan turkiga joogay aan xanuunsaday waddanka baa laga soo diray daawooyin badan oo dabiiciya horta oo aan marsaday malmale ay intaas ugeedaan weliga maqalo arag baa laysoo qoray oo meesha baa anaa kasii waalay waxaa kaloo jirta qofkan ku dhahdo meeshan bay barasan qalajiyaad u baahantay qalajiyada soomaaliya kaaga soo qaadayna in baa laygu dhahaa qalajiyaha marka turkiga oo kale antibiotic cidinska markaa qorayso waxaan garanayaa anigu markaa hablo badan inta ku xanuunsadeen meesha qalajiya iska dalbadaan dawo hiblaayo noo soo qaad waddankii baa looga soo qaadaya ma garanayaan waxa haya dhakhtarka intay tegayaan oo dawa ku habboon loo soo qoreeyey waxay ka jecel yihiin intuu dhakhtar wixii kaa soo qoraad ay iska isticmaalaan anigu waddankii markaan joogay bari baan hurda la-aan ugu dhacday farmasi baan inan baa igu tiri kan ku fiicin adigan kuu soo iibinayaa farmasi halkanaan kaaga soo qabanaya anigu weligii mrs google baan ahay wax walba googlekaan gelin jiray inantii kiniinka way keentay waxay uti waa lagu seexdaaya cun kiniinka waan qaada magaciisa meesha geliya waxaa loogu talagalay dadka isku buuqa ayuu maskaxda u dejinaya anigana buuqna ima haysan problemna ima haysan mobilkaas iyo facebook baan isaga soo jeeday iyo social media iyo waxaas dadna waan qabatima inaan habeenkii seexan waayo oon subaxdii seexdo markaan meeshii akhriyey waxaan idhi nabalaalo kiniinkii dadka xanuunsanaya dhimirka ka xanuunsan baa isoo qaatay maxaa ugu dhacay iigii inankii kuu soo qoray
inanka aan kadaba arko waxaan ku yidhi kuniinkan aad iska qaybinaysaa waa maxay ku qoran tahay dadka depressionka ku dhaco ama stresska ku dhaco ayuu maskaxda u dejinaya waa maxay baan ku yidhi kuniinka cid walba isaga qorinay dee dadkii ku habboonaasi marka waddankeeni oo kale horta cid waliba qof walba waa doctor waxaad arkaysaa iminka guruubyadaynu ku jirno ee facebooka gabdhuhu kale way garan karaan waxaa jira guruubyo badan oo gabdhaha ah intaa dee waa lasoo sawiraya intaa xanuun baa lasoo gelinaya waxay ku leedahay astaamahaasaan dareemaya xanuunkaasaan dareemayaa cid isku aragtay ma jirtaa cidda kale isku aragtay adiga tusahaan lugtaa ku xanuunaysa qof kale lugta xanuuntay isku xanuun ma noqon kartaan dee qofka qodax baa mudday adigana fin baa kaa soo baxay waxaad kala jaad baa tihi ama iska kaa xanuunay adiga laga yaaba inaad vitamin D u baahan tahay oo ay lafuhu ku xanuunayaan yacni mar walba xanuunkaaga lama raadiyo qof kale oo waxaas ay ku dhaceen iyo wixii uu kaga bogsaday waxaa la raadiyaa dawada kugu habboon baa la raadiyaa gurubyada waxay kaloo soo geliyaan oon inta badan ku arkaa dawooyin baa loo soo qoraya dhakhtarkii dawuu soo qoraya way soo sawireen sawir bay kasoo qaadeen waxay dhahayaan ka warama ha dawooyinka wax isticmaalmadi ku jiraan maxaa loo cunaa dhakhtarkaaga dabcan markaa u tagtay dawuu inkastoo Soomaaliya la isu buuxiyo dawada haddana marka aad joogtid weydii aku taa dawada maxaa loo isticmaalaa maxay tahay adag ka farsan weydid qof aad garanayso doctor ah oo caafimaad ku takhasusay la xiriir oo weydii laakiin dad Facebook public soo dhigtaa tiraahdo ama group aad soo dhigtaa tiraahdo dawada maxaa loo cunaa wax runtii laga fiican yahay iyo xanuunkaas baan dareemayaa dawooyin baa loo soo qoraa habla antibiotic midhan baa loo soo wada Facebook commentiga loogu soo qorayaa adigaaga ay daawanayaan haddaad ka mid tahay kuwa commentiga ku bixiya dee hebel baan ku ladnaaday ama ilmahayga dawadaas igu ladnaaday ka digtoonow dawo cidi ha ugu qoran adigu digtoon ma tihid waxaa dhici karta dawo aad qof siisay inay mataqaanaa halis geliso oo mataqaanaa naftiisa ay halis geliso daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh aad iyo aad ay u mahadsantihiin waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanadkii waxaan ooga hadalnay laba google-ka online-ka ah digitaalka ah iyo google-ka socda ee wareega markuu kaa soo rubax ku dhahay waa ilgooday waa buuran tahay waa cayishay war maxaa kugu dhacay waxaa laga yaabaa dee qof xataa iscaateeyey timaha hadday kugu baxaan lagu leeyahay timaha la baxo awgeed waxaa leeyahay war miyaa isla hadashay ha miyaa isla hadashay qaarkood waxay ku yidhahdeen nin khaayin baa u eg tahay hargeysa khaayinka waxaa lagu yaqaanaa filmaanta maaragtay hindida kuwa maaragtay tuugada jira khatarta ah waxaa la yidhahdaa khaayin baa la yidhahdaa og tahay laadir baa xaggan kale ka dhahan markii ku dara waxaa ku yidhahdaa khaayin baa u eg tahay marka horta dadku waa dad isku mashquulsan oo maaragtay isdaba gurayo oo isdaba socdo oo maanta dhan qof walba qof kale ayuu u muuqdaa indhahaada yaysan u muuqanin dadka kale indhahaada hoos u deji adiga isu muuqo adiga iska shaqe waxaanu leenahay inta xanuunsan ilaahay subxaana watacaala caafimaad buuxa ha siiyo ilaahay subxaana watacaala qalbiga ha u dejiyo ilaahay subxaana watacaala dhibaatada ha ka qaado walaalaha sharafta leh meel walba ay joogaan waxaa muhiim ah inaan mar walba noqono dad positive ah oo qalbi wanaagsan oo istaageera oo ka shaqeeya nabadda iyo wanaagga ka shaqeeya Soomaali haddaana waxaana xanaajisay dad iska wada cabaysan qoriga maaragtay marka xabadda ku taagan tahay waxaa la yidhaha ammaanka u xiran mid xabaddii baa raacsan Soomaalida waxay u badan tahay noocaas oo kaleba wuxuu sugayaa ma sugi karo wuu kusoo gelayaa wuu kula dagaalamaya iska kacaynaya waa dad ay ku wada furan tahay dad yani qaarkood runtii dad badan oo fiican oo jiraan qaar fara badan laakiin waxaa jira aad u maaragtay dhibaatada u badiyo gabagabadii gunaanadkii dadka youtuberada ah hore ayay soo mariyaan fariinta gacmaha ka shaqaysiiyeen maadaama suulka ka shaqaysiiya waan salaamay dad fiican baad horta tihiin oo wanaagsan hadalkaa kaa yarba waxaa farxad leh dad aad u wanaagsan baad runtii tihiin ayaan horena facebookeygaan ku saamaano waxaa idhi dadka youtube joogaa waa dad nasab ah oo yacnihii aad iyo aad u wanaagsan qaybta commentiga fariimahaad igu soo reebtaan kulli waan akhristaa aad iyo aad bay mahadsan tihiin ducada dhiirigelinta wanaaga qalbi wanaaga mararka qaarkood waxay qabata facebook ma kasoo guurtaayo google ma usoo wareegi guurtaa youtube-ka runtii walahi dad aad u wanaagsan baad waxaan sir dadka intii Soomaalida intii fiicnado mala YouTube bay dhex fadhidaa baan malaynaya Facebook-na asxaab fiican baan ku leenahay waa rugteena weyneyd waalan kasoo bilownay nolosha ilaa hoteenda lagu dhahay baa naga tageen lagu barayay maalinkan idhi waad ka guurayayo YouTube baan u guuraya ay waxay dhaheen maxaa kugu dhacay anagu caasin dad wanaagsan aan nahay marka dad badan oo fiican baa jira dad badan oo wanaagsan baa jira yacni taas hadalkan dilay wuxuu idin cadaynayaa in qofka shucuurtiisa iyo qalbigiisaba wax fariinta wanaagsan ama waxa wanaagsan ama hadalka wanaagsan aad ku tiraahdaa uu ka helayo dhiirigelin iyo in magaranaysaa uu soo dhiirado inuu wax badan kula wadaago laakiin haddii qofkii
يعني هذا الحين كنت لاهيد وحاجة بين ضدك قاركود مركب هربا تعيش كيرا أها إنه داوع جارسيسي مركا أدوكنا وحما أنا وناجم معنا تصمينين قفكي كان داوع جارسيسي مركا حكوسو جمعين يا ضد آدي وانا سنباتيهين كل يلا بايدين سلامية ومهزنتين مركا قاركود دوام كم بانسويرة في فرسان دونا إن شاء الله إذا عدي دقيسان ما دقيسان هذا لما هندن حمدي ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام.